qisada tani walaalayaal waa qiso xaqiiqo ah oo runoo dhacday waxayna ka dhacday wadamada carabta mid ka mid ah gaar ahaan kuwa khaliijka. gabadhaani waxay dhigan jirtay jaamacad waddankaasi ku taalla waxayna baran jirtay qaybo ka mid ah takhasusaadka diiniga ah. gabadha tani waxay ahayd mid ilaahay u hibeeyey cod aad iyo aad u qurux badan oo habeen kasta ay qur-aanka ku akhrin jirtay. qur-aanka akhrinta akhrinaysana aad iyo aad buu qurux badnaa. hooyadeedna waa dhegaysan jirtay habeen kasta. hooyadeed albaabka qolkeeday soo fadhiisan jirtay gabadheeda codka quruxsan iyo sida quruxsan ee qur-aanka u akhrinayso. muddo arrintaasi socotay. maalin maalmaha ka mida gabadhi waa xanuunsatay. kadibna waxaa loo qaaday isbitaalkii bay maalmo ku jirtay ilaa halkaa geeridu ay ugu timid oo ajasheedii ay ku soo dhammaatay. isbitaalkii waxay u sheegeen ehelkii gabadha inay gabadhii naf baxday. markay arrintaa ogaadeen aad iyo aad bay reerkii u murugoodeen, gaar ahaan hooyadeed waxaa soo wajahay culays aad iyo aad u weyn iyo murugo daran. habeenkii ayaa dadku u imaanayeen ayagoo u tacsiyeynaya. dadkii tacsiyeynayay markay noqdeen oo guryahoodii ku laabteen, hooyadii waa istaagtay. markii la gaaray bartamaha habeenkii waxay istaagtay qolka gabadheeda ay seexan jirtay agtiisa, iridda ag fadhiisatay. kadibna waxay maqashay cod u eg sidii wax ooyaya oo kale, weliba oohin hoose oo guriga ka dhex yeeraysa. kadibna hooyadii baa argagaxday, qolkiina maysa gelin. subaxii waagi markuu baryay dadkiibay u sheegtay iyo ehelkii. dadkii bay xooga warrantay arrinta ay ka maqashay qolka dhexdiisa. dadkii baa gurigii galay. markay galeen oo baareen waxba waa ka waayeen. habeenkii labaad sidii baa dhacday. hooyadii baa aaday qolka gabadheeda ay seexan jirtay, balse waxayba ka maqlaysaaba codkii habeenkii hore ay ka maqlaysay. ninkeeday u sheegtay arrintaas. ninkeeduna wuxuu yidhi waagu markuu barya ayaanu fiirin doonnaa. markii waagu baryey ayay baareen oo fiiriyeen, waxana waa ka waayeen. dadkuna waxay leeyihiin hooye adaa ismood siiyaya, waxba meeshaan kama jiraan. hooyaduna way hubtaa si xaqiiqo ah in meeshaan ay ka maqasho habeen kasta cod. kadib waxay arrintii u sheegtay gabadh ama haweenay saaxiibadeed ah. haweenaydii saaxiibadeeda waxay ku tidhi arrinkan waxaad u sheegtaa nin sheekha. taladii bay qaadatay hooyadii. nin sheikhay u sheegtay arrintaas iyo qisadii. ninkii shiikha ahaa waa yaabay. wuxuu ka yaabay waxa weeye wuxuu ka maqlay haweenaydan. wuxuuna yidhi anigaa doonaya inaan arrintaas soo ogaado. gurigaanu aadaynaa, wakhtigaas ayaynu la fiirsanaynaa. sidii bay sameeyeen. qolkii bay tageen. meeshii haweenaydu fadhiisanaysay ayay fadhiisteen ayagoo bal wax dhegaysanaya. markay meesha u soo dhowaadeen ayay waxay maqleen isla codkii. xataa shiikhii waa maqlay. shiikhii baa iska ooyey oo ilani soo dhaaftay. markaase waxay ku dhaheen maxaa kaa oohinsiiyey? wuxuu yidhi allah weyn, codka aad maqlaysid ee habeen kasta halka aad ka maqashid waa oohinta malaa'igta. waayo malaa'igtu habeen kasta waa soo degayaan ayagoo dhegaysanaya gabadhaada codka quruxsan ee qur-aanka ku akhrinayso. codkii bay waayeen ay habeen kasta dhegaysan jireen oo asaga daraaddiis ay u soo degi jireen. waa malaa'igtii oo weyday codkii quruxsanaa ee gabadhaada ay ku akhrin jirtay qur-aanka kariimka ah. ilaahay naga dhigo dad ahlu qur'aan ah oo meelahay khayrka ku samaynayaan ay u ooyaan. nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisii intuusan samaysan mimbarka geedkuu ku dul khudbayn jiray. markii mimbarka u samaystay oo xagga mimbarka u wareegay, geedkii waa ooyey isagoo u xeesay waayitaan u waayey wacdigii uu ka dul jeedin jiray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam daraaddiis. qofka muuminkaa meeshuu ku cibaadaysto markuu dhinto way oydaa, way u xiistaa cibaadadiisii. qur-aankaad akhrinaysay malaa'igtii ku dhegaysanaysay way kuu xiisaysaa, way ooyeysaa, way kuu murugoonaysaa. qofka muuminkaa cibaadadii wanaagga samaynaya, samaawaadka iyo dhulalka dhammaan, geedaha, meel kasta iyo meeshuu ku cibaadaysan jiray gurigiisii intaba waa u ooyaa. laakiin dadka faasiqiinta, dadka xumaanta sameeya, cidi uma oydo. sidaa darteed baa ilaahay fircoon wuxuu yidhi famaa bakat calayhim asamaa waalardu. samaawaad iyo dhulaltoona uma ooyin, laakiin qofka muuminkaa way ooyaan. ilaahay khaatumadeenna ha wanaajiyo, khayrna ha noogu khatimo. haddaad ka mid tahay dadka si fiican noola socda, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay la jirkaada. haddii aad tahay markii ugu horraysay inaadna dhegaysanaysid oona daawanaysidna ha hilmaamin inaad janalka ku soo biirtid oo sabskrayb tirahdid si aad u heshid wixii cusub wakhtiga uu soo dhaco, kuwii horena aad oola socotid.